بسم الله waxaynu kusoo guda jirnay barashada luqadda Talyaaniga kusoo dhawaada casharka saddexaad ee kamid ah chapter 3 casharkan waxaynu ku baranaynaa asking how someone feels waxaynu baran doonaa sidoo kale expressions like etu and così let's start tusaalaha koobaad aynu soo qaadanaynaa wuxuu noqonayaa ciao come va ciao come va ciao come va. Come va means how it's going. How is it going? Sidee xaalku yahay? Sidee wax u socdaan? Come va is a friendly way of saying come stai. Come va waa qaab saaxiibtinimo iyo gacaltooyo ka muuqato oo loo yiraahdo come stai. Tusaalaha labaad aynu soo qaadanaynaa waxa weeye bene, grazie, e tu? Bene, grazie, e tu? I'm fine, thank you, and you? Io means I, tu means you. Io waxay la micno tahay. Io means I. Io waxay adeegsanaya qofka iska hadlaya. Means you. Waxaa loo adeegsanaya qofka lala hadlayo. Tusaalaha saddexaad aynu soo qaadanaynaa waxa weeye oggi fa così. Oggi fa così. Oggi fa così. Means today I'm so. Means today I'm so. We say così when we are feeling neither good or bad. Così waxaynu dhahaynaa ama isticmaalaynaa marka aynan dareemin wanaag iyo xumaan midnaba. Oggi fa così. Tusaalaha afraad aynu soo qaadanaynaa wuxuu noqonayaa non sto bene, sto male. Non sto bene, sto male. Non sto bene, sto male means I'm not good, I'm bad. Non sto bene, sto male waxaynu dhahaynaa markaad xaalad fiican aad ku sugnayn eed xaalad xun ku jirto. I'm not good, I'm bad. Non sto bene, sto male. casharkeenu maanta intaanu ku eegyahay peace.